ma nabad baa haa waa nabad magaciina maqal ee masiirkiinu waa maxay Soomaalo milgaheedii iyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqi iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matasha iskumaan haye waraadna qoymayno walaaleegayigeenu mid weeye adna waa tii aan isku xiiqnay xalku waa federaal adigana maxay kula tahay dadka danaha Soomaal kala didinaya nicib allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi allahayow daweeyo iskumaan ku daa'imi adiguna xaqiiqdii dumarkeena xeerka way ku jiraan adna yaa akhiyow xaq ma laga dhunte xamar xun dhurtii dalka way haye adna xalaalkii ku dhaqmaa xilka waa u qalmaa adiguna haddaan xooga adkeeyno dalku waa xasilayaa adiguna inaan xoorno qabiilkoon qaran xeerinna waaye adna maxay kula tahay iskumaana arrinteedu waa ammaanta dalkeeda ixtiraamka dadkeeda wanaagay aragtaayo urin mayso xumaato assalaamu calaykum وعليكم السلام war yaa dubahayo cunayow war ayaanta xag ku arag xagga gashay war baryahanniyow hawl baan shaqaale waxbaan kabti baa qodax iga gashay hay ii waran adigu maxaad haysaa baryahan kuma arag aniga halkaasan hawtraadis baan ahay hawdkii baad weli ku jirtaa ayaanta magaalada waa ka war hayo waxaan ku horta abshirayso abshir telefoon baa igu soo dhacay waxaan hadda la soo ordo qodxuha cagaha iga jira lix markab oo degdeg ah ka soo yaa hadda la soo dalbo edarayso lix markabdan war arriga dhuxul lagu marka wadanku waa la xaalif kowde hawd halkaas dad u diray 19 qof baan u diray oo macal makiinadahoodii wata marka lix markab buuxin karna wadankii eber baa laga dhigaya hawdkaasaan hadda ku maqanaaya wariyaa hawdkii baa dhamaaday waxaas warta dhinacaas sha oo geedu ka buuxeeno halkaasoo xolo daaqeenka xolo isugu tageen warta halkaasi baashi buuxdo makiinadii cunka baa la haysaa makiinadii cunka daahi jireen waa baashi goynayso xiirayso waa oranayso tiina waa sida bas taasana ورياية ورياية نمكينا من حليال كبا هذا وحنا دي ويدينا هي حوغا بان دول تاغناي waxaan maqlay hawd halkaas oo isku xiran hawdka horta ana iskala waa beertaydi ma beertay artaan inta falataan oo geedaha ka qardaysan dhacdaan geedaha waaweyn iyo waxaas basasha yaanyada iyo bataatiga iska beero geedaha waaweyn meesha ku yaalo iska waaweyn oo baqbaqayo waxa baqa ay ka imaanaya caleemaha qashiga iyo beerta laynayo macal xididada siibeyna geedaha waaweyn cambaha ilaahay baa ii soo diray waa ducaysnahay waa duca amaad hadhow Soomaalida tiinay ugu fara badataano عاد meeshaan anaga qardaysanay dhulkaaga geed ka soo baxdo geed ka soo baxdo kugu haysan adar geed weyn wax kala yeelkooda geed weyn xarar iyo garasiyo qurac iyo malaa'ikad Allah soo diray geed weyn meesha ka soo baxo sabuulka lagama cuni karo habuuq ma helaysid waryahay war haysan baa iska sheegina ku dhahay dawlad baa jirta iyo qurac hadii la gubo waa la soo xirmaashi soo ku jirtay yeelaysa bahasha cusbada la yiraahdo waa wadka qurac geedka salkiisa lagu soo hor ka dhiman kow ana nagu dalwati baan haysanaa dalwati bahasha la yiraahdo ilaa kala ugu qasaan cusbaduna ma disha labadaba hadda isugu qooshay salkaan u dhigay bartag hadiiba geed noolaado hadii la qabtay ma sheegin isagaaba laga soo wada sakirta khayr Allah adeer waa ku salaamay adeer waan ka qaada adeer magaca Yuusuf baa la yiraahdaa adeer maxaad Yuusuf oo dhirta u rigaxaysaa nimcadan Ilaahay ku siiyay oo u baduugaysa adeer dantayda iyo shaqadayda aan ka arkay waana shaqada kaliya oo aan aqaano aan ku shaqaysto oo magaaladaad uga timi inaad dhirta baduugto mise miyiga deganta ma anigu miyigan deganahay oo aan ku noolahay saddexda maal oo adduunyada waa ku soofsadayo waa ii joogaan dhirtaha jaarine ka dhaaf waa dhaxalkii dhulka yaage waa dhaxalkii dhulka yaage dhulka ooyayaa yiri waalid ubadku uu dhalay dharka ay ka qaadeen miyuu dhaqasho gelayaa maya taa waxay ka dhigan tahay dhirtayda dab lagu shiday waxa ay u dhooftaa dhul aan geeda lagu arag intii dhiig lahay kaca inta dhiig dhisan baaq loo dhan yahay dira dhitayaan la dabar jarin dhaha oo iskaashada dhulka haddii isgeedka dhammaysiin roob sima soo daa ilaahay baari waaye dhirta ajirin siniil dhahay wax ma makhluusiine ilaahay baari waaye saan le maal ahaanaya akhi geedahan sababtooda ilaahay
ma dharka nugu siinayay ininkana geedihii meesha waa ka bixiseene awaaraan hays iyo oonaan ahay lee ku jirnaadahe had ininka war waa maqli waysayne kaymaa la dhahaa kaymo kaymaha meesha ku badan yihiin roobkaa ku badan imaqal soomaaliyey dhirtii maashaa alle mankeedu udgoonka siday ubaxa midabada qurxoon muuqaalka la daawan jiray magaada inoo ahayd manfaca laga quudan jiray ugaartu mashaaxayeen maraha iyo geedmirood miyiga waa xaalufayeen maxaa kayntii ku dhacay dab baan gelinay kayntii dab intaad maskax yeelataan makiinada xiiriyeen basaarta ka joojisaan intaasuna waa muhiim waa saas markii isku dhoonka iyo dawladdii noo dhisnayd cirbaha laysugu dhufto oo qabkeennu u hoos u dhacay warshado lagu dhaata iyo dhaqaalihii qaranka iyo beerihii noo dhalahayey iyo kalluunkii dhoofi jiray intaba calankoodii dhacay waxaa dhaxal noogu haray dhirtiyo xoolaha ku nool neef aan geedba u dhaqnayn miyaa dhay laga cabbaa dhitiyo subag laga dhigtaa miyaa suuq loo dhigaa maya hal aan geedba u dhaqnayn dhulkeedu ugbaad ahayn miyay ka baxdaa dhukaan miyay ku dhashaa labeen abaaru hadday dhacdana dhamacda u adkaysataa ma waashaan dhaqanayaa dhirtana waa jarahayaa waxay la mid tahay dhabtii dhaqaaq adigoon dhar qabin intee dheef lagu qabaa waa geedka waddani geedkaaga dhowr difaac dhaxantuu u yahay dharaarta har buu u yahay wuxuu noo yahay dhismaha dhaqanka wuxuu noo yahay dhismaha hoygiiyo dhaqankiiyo hiddaha waxaa kuu dheer midhaha dhugmiyo garashay rabtaa maxaa saxaraha dhulka ah dhedadu u fadhiisataa dabayluhu ugu dhuftaan abaaruhu uga dhacaan si aan taas noogu dhicin xisaab dheeraada iyo dhugmiya garashay rabtaa iskumaanay halkan waxaan ka soo jeedinaynaa gabay barnaamijkan quseeya oo uu tiriyey allah u naxariistay abwaankii weynaa cabdulqaadir xirsi yamyam oo dhulkii soomaaliya iyo dhirtii oo hadlaysa wuxuu yidhi miyaynan dhaansan awr korkayga ku dheeli tiran wandhabar weyn iyo sangiya miyaan darib laysla dhicin miyaan dhoy iyo karuur waraasillo aad la dhamin dhitara burcad laga simayn naacow aan wax loo dhigoo la dhaabsado dunidu hayn miyaana ku dhaadan jirin midkeebaan dhigan jilbaha dhabtana loox yaan ku qaban khad yaan dhabankiisa marin tahliisha rasuulka dhabimin tawxiidkana aan ku dhalan dhurdaha ma ka liidataan xaggee dhaqankii dhigteen dhib bay aadmiga ku tahay inuu dharla'aan socdo ee bulshada wada dhoohanaya garaadka ka dheelmataa xaggee cimilada dhacdaa xigaalkay ehela iyo xabiibkay baa taho xididada dhiigga iyo xudunteenna isku taal xoolaha dalkiiyo xaqan wada leenahay ee xogtaan iga qaado oo walaal xaashiyow imaqal xa'dii kale waxaan lahaa xuquuq noo wada shirka ah haddaad keli xaabsataa xaaraan weeye midaas walaal xaashiyow kadaa xa'dii kale waxaan lahaa haddii geed xanana iyo xajiinkii yeeshay iyo midkay xooluhu cunaan xasuuq lagu wada dhirto xagaaf laga dhiga dhulkii daruur soo xiinta iyo xayskuma soo hooraya ee walaal xaashiyow kadaa xa'dii kale waxaan lahaa haddaan hogol xiifku odhan abaar xaqdaa dadkiyo xoolaha dhammaan xagatada gaaja iyo xubeera laga helay walaal xaashiyow kadaa xa'dii kale waxaan lahaa haddaynu xisaabtanoo xanaanaynaa dhirtana xilligo no hooro oo xareed jiiftaa arlada dhirtoo xaysaarato xabag iyo midhalahoo xooluhu noo badan yihiin xaafadahoon seexan weli xodxodo guurwiil u baxo xaragada laga helay walaal xaashiyow kadaa aamina ii waran nabad xaaji lama roono waa roonnahay arninka mahaa soo socda ninka qasaahay muu egyaha mase waa wax kale aawey allayleh waa asagii mayaha horta waa ruuxadiisii allayleh assalaamu calaykum qase calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu war waa isagii maanaad igu foognaydeen foognaashadaanaanba aqaanina foogta maad ka wadaa maya xaaji wuxuu ka wadaa maanigaad i hadal hayseen intaan ku huraynaa walaalayaal waan fiicnahaye ma fiican tihiin xaajiyadani madumaashaday baa quruxda badani maasha allah haahe ishaada ilcaaro xaaji qasow ma mahaagiyaa deganta hawaaga maya xaaji meeshii waa ka soo guuray oo halkanaan guri cusub ka gatay arkhayr badanaa nooga kaa dambeeye ma arrintii dulaalnimadaa kuu kala kacday maya shaqaale dawladeed baan ahay xafiiska carratirintana waa ka tirsanahay dilaalkiina waan yar
daadubaa alla xaaji ma caraa la tiriyaa waa maxay haahey qofka carra xisaabi kara oo cilmigeera yaqaanaysa u taallaa taasu weliba waxaa kaloon maqlay xisbi bolol la yidhaa inaad ka tirsan tahay adigoo shaqaalo dowladeeda carratirinta aad maqlaysaaba waa xisbiga bolol keligayna maahee dad iga waaweyn oo shaaruba waaweyn baa meesha ku lifaaqan allailehe iyadoo shaqaalo dowladeed la yahay haddii lugaha iyo gacmaha meel walba lagula jiro allailaha dowladda waxaa u taal shaqo badan yaa awshiikho wareeraa biyimidba hay busuri ma maqliinino wadaadkii hadda waramaye haddana ninkaas mabaka maleesanayninba dibitaati weyn afar jeeb la khabkhabla weynasa ma arag fatuur fiicanna waa wati fatuura maaha u taali markayno dowladda dhanna sare waa inas dhunji ma naxaaya baya dad yaxas aanu xariir ilaa ana mooti unuku dowla dal noogu jirto wixii soo marni waa ogtahay xamar silisku fufiiqanaaye waa ogtahay dhib waa soo marni dhib kalas raba inaas noo noqo wadaadkan وبيعشوني ورابي كم بعد ماشي اسكو جرو ولكن انسان wax ku tursa marka والله دولة هولا وتال كله كان له هذا واحد إلا أنا موتي وذات كان شيء ورمي هلا خبطه كان خير مصوضه أنا كذب ليش نويا كان خير من مصوضه لا بجحدي وكأي لا كجرناني بيعب أذينا يا بهذانا وردت كان يا وحشيغة وحفهنسي ور الدنيا يا معارضك أدومك كتيرة يا كان أنا كهيسون وحوين بقول حي ور معارضك الدنيا كتيرة دل كودا مدمية أو ضد كودا اسكو diraan oo way u daneeyaan oo dhaqaat isbitaalay dhisaan oo mashaariic bay bixiyaan siday bihri kursiga u soo fuulaan oo loogu codeeyo codka loo siiyo war waxaan si ma ahane macaarad wax toosinaya aan yeelana macaarad wax duminaya aan yeelanin macaarad wax toosiyaa mujtamac weynuu rabaa asaageen muhindisa markaan loo baahan yahay maldahana waxaa jira laga dhigay mas-uulo dowladdii ka mid ahoo qoolmiriiraxayn iyo mijaxaabo mooye madda toosan aan rabin oo haddana mushaaric ah dhalashada mawaadina mabda'ana shisheeye ah maxaa lagu gartaa kow muxuu doonayaa muraadkiisu waa maxay yaa ay macnayn kara ugu way dhulkeenu ilagaas ya badroola dahab ogada saaran ugaartoo kala jaada miraha ayda ka buuxa ilaah baa ku manaystay badweynta aad aragteen nimcada uurka u jiiftaa idilkeena kafaysa wax kasta oo ku abuurto in yar bay ku baxaan oo haddii hektar la beero la idlayn kari maayo idasa inta lulaayo iyo arigkii dhaqanayo ama giir yar aroorsan ama geel ku ilaashan intaba waa anfacayo kama waaye irsaaqad qaba ogada didiyo kuleel aadana maaha xilligay ka ahaato hawada ku imanaysa waa udgoon iyo raaxo ha yeeshee ummadiisu ma iibaansanayaan oo ma ilaashanayaane in sheeya la cadiyo fisay siyaar horta loo kala lahaa kuwa loo ordayaan inoo kala weeyo nama dheere awoode waa addoomma dadaalay wax lagu urursaana waa ayaba kumuda ay tinka dhushaada ay tinka dhashaada ubad kuma korsaane asaageen baryadiisa in ilaah naga kalo arradeedna deqdo tacab aan ogolaano abaraa nagu raagay aan nooga dambeeyo coladaha nasiba ilaahay naga saaro hadda ay abwaanku yidina aamiinta ku haya haddaad maadda sulugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku maan oo isku mowqifna weeyo madashaa ka dhaxaysiya miiska doodda u taalle adigoo aan masuugin oo mirif ciil isla siinin ha munaafaqadayna bal markaa ka jeedi